grab all your people. What's good dadkayga horta dhammaantiin waan salaamay soo dhawaada haddii aad YouTube-kayga ku cusub tahay soo dhawo magacaygu waa Hanad Fitness saad dadkayga marka week hore isugu ka dambeysay saad la socoteen markii aan soo geliyay video-ga quraacdii waxaan ku quraacdo subax walba waayo intiina hore u ogay social media Instagram-ka Facebook meel bay kala socotaa markii tartanka ka soo laabtay waxaan hadda goolkaygu yahay in aan miisaan isku daro saddex shay baan maanta ka hadlo oo aanan anigu samayn markii aan jiimta bilaabay oo aad iyo adigu waan jeclaan lahaa inaan cidi ii sheegi lahay maanta nasiib baad u leedahay inaan kuu sheego saddexdan shay waxa laga yaabaa mid ka mid ah inaad samayso laba ka mid ah inaad samayso saddex ka mid ah inaad samayso waxaan laga yaabaa inaad jiimta aad ku jirto laakiin aad samaynayso laakiin cid kuu sheegtay aanay jirin saddexdan shay si aad uga faa'iidaysato subscribe channel-kayga like the nasa way video good maat waxa rajinayay anfaco hadii aad hadda bilaabi rabto jimta iyo hadii aad hore ugu jirtayba let's go boom waayahay waa ta koobaad iska ilaali marka aad jimta aad joogto in aanad waqti badan jimta aanad ku lumin 3 saacadood 4 saacadood 5 saacadood waa jimta ku lumisa wax isbedel ah ama ma taqaanayay aad arkaysaa ma jirto kaliya ta naftaada u sheeg niyad waan ogahay adag tahay inaad aamintaa waan ogahay in adag tahay inaad istiraado okay haddii aan jiimta ka joogo haddii aan 3 saacadood aanan joogin 4 5 saacadood 6 saacadood aanan joogin jiimta jirkaygu ma dhismaya maya jirku wuxuu dhismaa marka aad guriga joogto waxaanu dhismaa markaad cunto sax ah iyo training waqti kooban aad sameynayso haddii aad jiimta 4 saacadood 5 saacadood ku lumiso ogsoono jiimta markaad joogto muruqihii waa dilaysaa saad la aragteen dhamaantiin marka aad jiimta joogto ee aad biraha sameynayso jidhkaagu uu bararaa muruqyadu way soo koraan ma ila aragteen marka aad ka timaado jiimta ee guriga timaado ma isweydiisay inay wixii baaba'een ama muraayada dib isugu eegto marka guriga timaado ama wiilaha ama gabadhaha marka aad soo noqoto ka timaado jiimta marka muraayada isku eegto muruqyadu ma baaba'an ama bump ma ka baxa jidhka taasa kamid ah haddii aad jiimta joogto macnaheedu ma aha marka jiimta ama biraha qaadayso saad u eegto jidhkaagu u bararsan yahay markasta u bararsanaysa marka aad jiimta joogto waa marka aad muruqyada aad dilayso marka ka digtoonow in aad 3 saacadood 4 saacadood 5 saacadood jiimta ku lumiso wax isbedel ku imaanayana ma jiro waan jeclaan lahaa anigu in aan ogaado markii aan jiimta bilaabay waxaan tagay 6 cisho weekii 7 cisho marbaan 10 cisho isku xiga waday 15 cisho isku xiga waday maalin kastana waxa aan tagay 3 saacadood 4 saacadood baan ku jiray 5 saacadood baan ku jiray 2 saacadood baan ku jiray 3 saacadood iyo bar baan ku jiray wax isbedel habeerataan arkay ma jiraan marka haddii aad rabto inaad bilowdo jiimta ama aad ku dhex jirto waad samaynaysaa tan in aad jiimta waqti badan aad ku jirto ama aad 4 saacadood 3 saacadood ku lumiso jooji waqti kooban ilaa 50 daqiiqo ilaa 60 daqiiqo way ka badan yihiin haddii aad ogsoon tahay mashiinada aad samaynayso inta xabbi ay yihiin inta set mataqan ama inta reps ee aad samaynayso wax kale oo isbedel habeerata ku imaanaya ma jiraan haddii aad 5 saacadood ku jirto ama 4 saacadood ku jirto 60 daqiiqo 40 daqiiqo way ka badan tahay haddii aad mashiinada aad samaynayso ogsoon tahay taas waa laba kaliya horta marka aad jiimta joogto haddii aad ku cusub tahay ama aad wadayba in badan ama aad rabto inaad bilowdo iska ilaali in aad wax culus aad qaado wax culus qaad laakiin waa in cuntada kuu saxnaataa si kasta jiimta u tag haddii aad rabto inaad garbaha dhisto lugaha inaad dhisto dhabarka inaad dhisto meel kasta aad rabto inaad dhisto waan ogahay waxaad rabtaa in jirkaagu qurux badnaado waan ogahay waxaad rabtaa inaad dhaqso jirkaagu uu koro laakiin ogsoono cunto la'aan wax isbedel ku imaanaya ma jiraan 5 cisho wad 10 cisho isku xiga wad 20 cisho isku xiga wad maalin ka dambaysa isku day inaad wax culus qaado tijaabi wax isbedel ku imaanaya ma jiraan waayo cuntadii kuma saxna goolkaagu wuxuu doonahaada ama miisaan iska dhig ama isku dar ama mataqaanay miisaanka halka taagan tahay ahaw ama mataqaanay jidhka faadka ka saar
anything wax alaali wuxuu doona ha ahaado goolkaagu haddii aanay cuntadaadu kuu saxnayn wax isbedelo ku imaanaya ma jiraan jimtana culays aad qaadaysaa wax isbedel ku keenaysaa ma jirto waxa laga yaabaa inaad sanad ku jirto 2 sano ku jirto 3 sano ku jirto laakiin wax isbedel aad arki laadahay maalin kasta markaa jimta tagtana wax culus aad qaadayso sababtu waa cuntadaadu waa inay kuu saxnaataa marka hore kadib waa inaad ku socotaa jalwad inta cishaa tagaysa weekii marka anigu waan jeclaan lahaa markii aan jimta bilaabay inaan haysto cid bigarab istaagta ii sheegta oo ma taqaanay tiraahdaa sayansan samee markii aan yaraan baan ku bilaabay jimta marka kaliya ta ogsoonow waan ogahay hadda 15 jirta 16 jir aad tahay 20 aad tahay 25 aad tahay I know waan ogahay harto jirkaaga inuu qurux badnaado waan ogahay inaad rabto inaad weynaato garba fiican aad yeelato ma taqaanay laabtu soo baxdo ma taqaanay calooshaad soo saarto jirkaaga inuu wada qurux badnaado laakiin dadkayga isku dayna fahantaan cuntadu waa muhiim si kasto ma taqaanay miisaan culus aad u qaado wax ku imaanaya ma jiraan isbedela kaliya tina dugsunaato koob inay cuntada ku saxan tahay laba jimti marka tag wax culus qaad iskana ilaaliyo dhaawac ku soo gaaro markii aan anigu jimta bilaabay meel kasta dhaawac bay iga soo gaaray beenidii sheegay waa dhabarka dhaawac bay iga soo gaaray lugaha dhaawac bay iga soo gaaray laabta dhaawac bay iga soo gaaray garbaha dhaawac bay iga soo gaaray marka ogsoono miisaan culus qaad laakiin qaad miisaan adigu awoodo ha qaadin miisaan qof kale uu qaadayo halka taagan saaxiibka uu qaadayo saaxiibada ay qaadayso qaad miisaanka adigu awoodo taasi waa taa saddexaad baa soo hadhay waqti way qaadanaysaa in aad jirka I know waan ogahay inaad rabto inaad dhaqso jirka u dhisto laakiin niyadaada geli waqti way qaadanaysaa sano 2 sano 3 sano 4 sano 5 sano 6 sano way qaadanaysaa 7 sano in ka badan way qaadanaysaa inaad jirkaaga sida aad rabto u dhisto waanaad ogsoontiin dhammaantiin haddii ay fududahay in muruqyo la dhiso meel kasta la weynaysiiyo dadka dhan baa wada waaweynaan lahaa marka kaliya taniyadaada geli in ay wixii waqti qaadanayaan cuntada ku saxan tahay training ku saxan yahay aynu waxaan anigu sameyn jiray markii aan jimta bilaabay markii aan anigu jimta bilaabay kaliya ta midda ku fikir jiray waxay ahayd jimta tag cuntada doonto iska cun wax culus qaad maalin kasta jimti ku orod 5 cisho tag 7 cisho tag isku xiga 20 cisho isku xiga 15 cisho isku xiga wad degdeg baa igu jiray laakiin wax isbedeloon arkay habeeraatay ma jiro waxa laga yaabaa inaad sanad wado waxa laga yaabaa 2 sanaad wado wax isbedel aanad arag wali laakiin wadada ka qaldan tahay xagga training xagga cuntada waan ogahay degdeg kugu jiro haddii aad kaliya taad rabto inaad resultaad ama isbedel fiican aad hesho waqti kooban waa in cuntadii on point ku ahaataa training waa in on point ku ahaataa hurdadu waa in on point ku ahaataa on point markaan leeyahay waxa ka wada in ay wax kasta ku saxan yihiin hurdo fiican aad helayso waayo isbedelku wuxuu imaadaa markaad guriga joogto markaad nasanayso markaad hurdo ayuu isbedelku imaadaa ma imaado markaad jimta joogto waqtin way qaadanaysaa waan ogahay dadkaygu inaad adag tahay inaad sugto 5 sano muruqyo imaka haddii aan ku raado 5 sanaad waqti 5 sano kugu qaadanaysa inaad garbaho kaliya taad dhisto waxaad oranaysaa waan iska dhaafiyaa jimti ama san kalaan samaynaya ama wada kalaan qaadaya oo kiniina iyo waxyaabo kale isticmaalaya maya samir waa inaad yeelataa waqti way qaadanaysaa inaad isbedeshaa markii aan anigu bilaabay kaliya ta haddii aan ogaan lahaa qof kaliya ta ii sheegay guraada jooji degdeg jooji waayo waxaan rabay inaan mar kasta weynaado waxaan rabay inaan dhaqso ku dhiso laakiin waa process waa qorshe waa ma taqaanayay kaliya tan marka horeba sheegay isweydii dadkoo dhan maxay wada waaweynaan waayeen dadkoo dhan maxay wada muruqyo wada yeelan waayeen dadkoo dhan maxaa 90% ka dhigay isku mid isweydii taa kaliya way adag tahay wixin waxay u baahan samir iyo dulqaad marka kaliya haddii aad 15 jir aad tahay 20 jir aad tahay 25 jir aad tahay 30 jir aad tahay aan wali jirkaaga aan dhisin samir yao wuu dhismayaa jirki waqti wuu u baahan yahay wuu ku nasto cuntadii trainingkii wax kasta processki inaad qaado wadada saxda ah marka kaliya niyadaada geli
in ay imaanayso way imaanaysaa kaliya taniyadaada geli dib u fadhiiso wad mataqana processka aamin naftaada waad samaynaysaa haddii aad rabto inaad miisaan iska dhigto waad samayn kartaa muruqyada qof ku dhashay ma jiro markii aan anigu gymta bilaabay kaliya waxaan oran jiray okay maxaa sameeyaa xageen qabtaa maxaa si dhaqso ku helaa isbedel dhaqsaan rabaa maya ilaa markii dambe fahmay marka kaliya haddii aad aqoon u lahayn cuntada ama trainingka ama mataqaanayay si jidhkaaga aad u dhisayso waa inaad haysato qofku garab istaaga coach gareeya waan ogahay waxa laga yaabaa 5 sano gymta aad ku jirto 3 sano aad ku jirto 2 sano aad ku jirto 20 jir aad tahay 25 jir aad tahay wax isbedel weli ma arag waad kaniya jabaysa I know waan ogahay laakiin wad ogsoonow 5 sano aad ku jirto ama 3 sano ama sanadka ama bisha ama dhowr iyo 10 sano gymta aad ku jirto waan ogahay in ay adag tahay inaad aamintaa waan ogahay in adag tahay inaad aamintaan ku raado jooji oo ma taqaanayo cuntadii dib u sax oo 5 sano dambe gymta ku sii ma taqaana khasaari maya 5 sanaad wada ama 10 sanaad wada ama 6 sanaad wada wada qaldan baad wadi ama ma taqaana wada qaldan baa saarnay si qaldan baad wax sameynaysaa cuntada haday noqoto training haday noqoto laakiin haddii aad hadda isa saxdo haddii aad isa saxdo oo aad kaliya ta samayso okay waxaan u baahanahay cuntadii waxaad u baahan tahay trainingkii waxaad u baahan tahay hurdadii waxaad u baahan kaliya ta hadda samayso waqti dambe kaalmiya ma jiraan inama ila kulmi 5 sano ku jiray 6 sano ku jiray wax isbedelo arkin ma jiraan anigu waxaan ku arkaa dad cadaan iyo Soomaali cid kasta ajnabi waan arkaa 10 sano meesha ku jiray gymta 5 sano ku jiray waxay u eegyihiin si sanad ka hor dad anigu aan la kulmay isku gym aan ku wada sameyn jirnay 2 sano ka hor 3 sano ka hor si uu ekay ay hadda u eegyihiin sababtu waxa weeye processkii saxda ah may sameyn haddii cuntadii noqoto haddii trainingkii noqoto haddii tilooyin anything wax kasta way gymta waan ogahay waxa laga yaabaa qofka hamriqi waaweyn inaad la hadasho oo tiraahdo okay in waxaan u baahanahay talo isii taladu way fiican tahay laakiin talada fara badan dadka iska hadalaya san samee dadka hadalkooda ha dhageysanin kaliya cuntada marka hore saxo trainingka saxo hurdada ku saxnaato hurdo fiican inaad hesho habeenkii iyo inaad haddii aanad garinahay inaad haysto san hore buu yiri qofku garab istaaga marka waa taas kaliya niyadaada geli in ay waqti qaadanayaan haddii aad hore jidda ugu jirto 3 sano hadda aad ku jirto wax isbedel weli aanad arkin jooji oo 3 mid kamid aad sameynayso ama 3 baad sameynayso ama 2 kamid aad sameynayso kaliya happy iska dhig waqti way qaadanaysaa waana imaanaysaa ee adigu kaliya si jidka waqti sanad dambe 2 sano dambe 3 sano dambe laakiin cuntada iyo trainingkii intuba ay ku saxan yihiin kadib uu imaanaya isbedelku haddii aad laakiin san ku sii wado wax isbedelo ku imaanaya ma jiraan marka waa ka 3daas dhamaatid kula talinayaa dadkayga haddii uu jiro wiil walaalkay ama walaashaya oo 3dan mid kamid ah sameynaya u sheeg oo u sheer gare si ay dhamaantood ama qofkaas ama inta qof aad garanaysaa ay ma taqaanay u joojiyaan qaladkan way wax isbedelo u imaanaya ma jiro haddii ay jirto wax su'aalaad hayso xaggaaga xagga cuntada xagga trainingka xagga talooyinka commentiga igu reeb waad ogtihiin social media-gana waan ka idhaahdaa saacad ilaa 2 saacadood baan ku lumiyaa si aan idinka jawaabo su'aalaad hayso aan oo dhan dhinaca xaggan YouTube-ka marka commentiga igu reeb wixii su'aalaad hayso dadkaygo waan ogtihiin week kasta waxaan isku dayaa inaan hal video ama 2 video aan soo geliyo week kasta marka si aan ku dhaafin videoyada soo socda xagga cuntada xagga trainingka xagga talooyinka subscribe saar like tana saar waxaan idin leeyahay waa inoo iyo marka xigta see you